xiisadda colaadeed ee u dhaxaysa wadamada Mareykanka iyo Venezuela ayaa cirkaas ku shareertay. Madaxweynaha Venezuela ayaa sheegay inay istifaaci doonaan haddii ay soo weeraraan Mareykanku. Yaxye Nairobi ayaa warkaasi faahfaahinaya. xiisadda colaadeed u dhaxaysa wadamada Mareykanka iyo Venezuela ayaa cirkaas ku sii shareeraysa. Madaxweynaha Venezuela ayaa sheegay inay istifaaci doonaan haddii weerar ay kaga yimaadaan dhanka Mareykanka. xiisadda labada dal u dhaxaysa ayaa kululaatay kadib markii ay Mareykanku ciidamada badda u daadgurayeen dhinaca xuduudda Venezuela, taasoo Venezuela u aragtay daandaansiyo dagaal doon. Wakaalada wararka ee Venezuela oo soo tabinaysa khudbadu madaxweyne Nicolas Maduro u jeediyay ciidamada dalkaasi ayaa uu ku sheegay inaanay jirin waddo uu Mareykanku u soo maray weerar uu ku soo qaado Venezuela. madaxweyne Maduro oo xidhan tuutaha ciidamada dalkiisa ayaa sawirada lagu soo bandhigay lagu arkay warbaahinta dalkaasi. Madaxweyne Trump ayaa maraakiibta ciidamada Mareykanka leeyihiin u diray Koonfurta Ameerika isagoo ku sababeeyay inay ka hortagaan kooxaha maandooriyaha ka ganacsada ee deegaanadaasi ka faraha baas ku haya. ciidamada Mareykanka ee badda ayaa iyaguna saldhig ka samaystay meel ka baxsan biyaha badda Venezuela, taasi ayaana shaki keentay.